xildhibaan xasan cawaale caynaan oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Somaliland laga soo doortay gobolka Gabiley ayaa maanta lagu dhex garaacay xarunta qasriga madaxtooyada Somaliland waa sida uu sheegay xildhibaanku waxaana xildhibaanka gacan u qaaday taliyaha aqalka madaxtooyada Somaliland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa xildhibaanka wallahi golaha anagu joognaa madaxtooyada anagu joognaa ayaa nin xildhibaan oo ila socday ayuu nin gacanta ku soo fiiqay deetana waxaan ku yidhi war wax xildhibaanay aad gacanta ku soo fiiqin deetana ninkii wuxuu tegey taliyihii oo ordaya ayaa markaa halkii igu yimid deetana feed aanan ogeyn arkayna ayuu igu dhuftay dib baan u dhacay deetana askartiina warkaas way igu soo yaacday nin walba dhinac buu qabtay wuu jiiday qaar bay dhirbaaxay runtii dhaawac weyn baan qabaa oo markaa wadnaha ah wallahi waxaan ku sugaynay waxay shirkii wasiirada ahayd markaa waran caddaan dan u lahayn oonu halkaa u tagnay waran cadda wuu joogay waranta ma taliyaha madaxtooyada mise waa taliyaha guud ee ciidanka qaranka waa taliyaha madaxtooyada isaga ay feerayba sidoo kale waxaanu xildhibaanka kula kulanay isaga oo isbitaalka guud ee caasimadda Hargeysa lagu baarayo xaaladiisa caafimaad maanta halkan waxaan uga jawaabayaa nin la yiraahdo farmaajo jamhuuriyadda Somaliland waa muqaddis waxa weeyi cidii farigelisana waxa weeyi dib bay ku noqonaysaa jamhuuriyadda Somaliland waa mid ilaahay taageeray oo hagaajiyay oo uu saxay ninka farmaajo la yiraahdo waxaan leeyahay farmaajo haddii aad aflagaadada iyo dhacdhaca aad naga day weydid sidii adeerkaa afweyne ayaanu laa kula dhici haddii aaba yidhaahdo waxa kaloo aan maanta ku leeyahay adigu fal baad ku timid kumaadima doorasho waxaad ku timid fal baad ku timid falkaasina dadkaad fashay doorasho kumaadiman waxaanu ku leenahay haddii aad aflagaadada iyo dhacdhaca haddii aad naga day weydid sidii adeerkaa afweyne ayaanu adeer maraqaaga cabbi doonaa haddii aaba yidhaahdo ta kale aan maanta halkan ka sheegaya waxa weeyi Ethiopia waa dal wanaagsan oo fiican oo wanaagsan dalkaasi madaxdoodu way wanaagsan tahay shacabkooguna waa wanaagsan yahay mar walbana afkaad ku haysaa farmaajo oo markaasi mar walba waxaad leedahay afkaad ku haysaa haddii aad afka ka day weydidna dalkaasi waa dal wanaagsan oo aanu jaar nahay oo aanu saaxiiba nahay oo aanu wanaagsan nahay marka waxa weeye farmaajo aflagaadada ka daa dalka Ethiopiana waxa kaloo aan maanta halkan fariin adag uga farayaa oo aan leeyahay farmaajo dibta waxaynu nahay dal saddex wadan baynu nahay Djibouti af Soomaal bay ku hadashaa Somaliland af Soomaal bay ku hadashaa xamarna af Soomaal bay ku hadashaa waxa weeye carabahoo dhanna dee af carabi ku hadlaan waana wada dowlad adeer waxaan ku leeyahay aflagaadada naga daa haddii aad aflagaadada day weydidna annaka kaa shaqayn doona heshiiska labada gol ansixiyeen cid ka noqon kartaa ma jirto
labada golaan siiyey xidhiidha soo shaqeynaa madaxweyne farmaajo waxaa jiray wuxuu ku soo baxay falo maamuus badan baad ku leedahay qaranka Soomaaliya iyo Somaliland arrintaasi maadaama aad ogey maxaad ku cadaynaysaa dalkan dad baa u xaq u lahaa inay madaxweynaha ku soo baxaan sidaa daraaddeed wuu falay fal baanu ku soo baxay dadkii wariyaha la xidhay waxaan ka codsanayaa dadka xidhay inay soo daayaan aada iyo aad ayaan uga codsanayaa runtiina waxaan leeyahay ha la soo daayo